waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta dowladda ee halkan nala jooga golayaasha kala duwan leh maamulka degmada khiyaarta kale muqaawirta kale halkan joogta wakiilada iyo guddoomiyaasha tartanka ku matalaya kaydka ramadaanka degmooyinka Puntland ee sanadkan soo diiwaangeliyay soo dhawaada dhammaantiin waxaan ku faraxsanahay inaan sanad kale oo ah sanadkii 19aad oo barnaamijkan qabanayno halka isugu nimaano inuu caafimaad iyo nabad qabna waxa laga ujeedinaa isbedeleen dadku isbedeleen laakiin degmooyinkii iyo tartankii iyo ka qaybgalkiisii iyo faa'iidada uu lahaa intaba ismaana bedelin tartanka sanadkan waxaan la maalgelinay shirkadda Somtel oo sanadkii labaad maalgelinta marka laga hadlayo wax walba oo la qabanayo wuxuu baahan yahay dhaqaale iyo socodsiin iyo shaqo haddana waxa lagu bixiyo oo lama jeedaan shirkadaha guud ahaanba barnaamijyada noocan oo la maalgeliyo in qofkii uu nafac ka faa'iiday laakiin waxa ka muhiimsan isdhexgalka bulshada isbarashada dhalinyarada isu haynta dadka aan isku haynayno markaan tusaale soo qaadano tartankan marka halkan laga bilaabo Boosaaso oo laamiga aan qaadno ilaa iyo Gaalkacyo ka soo jeesanaya marka halkan laga bilaabo oo dhinaca bariga la aadana wuxuu tagayaa ilaa iyo Gaardafo ama Ras Casayr gobolka la yiraahdo dhinacaana wuxuu tagayaa ilaa iyo Highland ilaa iyo Sanaag salkiin marka waxaad dareemaysaan intaas oo dhalinyaro oo kala duwan oo mujtamaca halka ku dhaqana inay ka qayb galayaan xarana si weyn ugu mahadceliyo shirkadda isgaarsiinta Somtel oo sanadkii labaad barnaamij hadda la maalgelinaysa barnaamijkanna ku bixinaysa abaalmarin kala duwan halkan ay ka hadli doonaan iyaga sheegi doona marka laga tago dhiirigelinta loo sameeyo dhalinyarada ama howlwadanada SPC guddiyada ka shaqeynaya marka laga tago barnaamijyo kale waaweyn bay soo wada sanadka filasho ka duwan filashooyinkii hore baa rajadu tahay marka insha Allah habeen dambe barnaamij rasmi u bilaabanayaan qodobada qaar shaacin doonaa hada dib aan usii dhiganaynaa waxaan uga mahadcelinaynaa doorka iyo shaqada barnaamijka markaan u bandhignay ugu horeysayba balaadoodii iyo ku dhiiranaantoodii sida nogala shaqeeyeen waxaan sidoo kale dareemi karnaa jaalka ay bulshada uga jiraan isgaarsiinta iyo teknolojiyadda la isticmaalayo iyo waxaas oo dhan wuxuu ku horumaraa tartanka warbaahinta arkaysid isgaarsiinta arkaysid shaqooyinka kasta iyo hay'ad kasta iyo shirkad kasta ay marka uu jaalku yimaado in teknolojiyadda iyo casriga iyo sida loo soconayo lagu tartamo waxay keenaysaa marka Somtel waxay isleeyahay in hore loo socdo oo marxaladii internet iyo marxaladii isgaarsiin iyo dhaqaalihi isgaarsiinta ku bixin jirnay inaan ka baxno abaal weyn ay ku leedahay shacabka Puntland dhaqadaha inta la isku wici jiray internet intuu ahaa xawaaruhu siduu ahaa tayada siday ahaayeen shirkado kalena waa yimaadeen runtii marka runtii wax walba marka ballaarta annaga isgaarsiin marka la warbaahinta oo kale telefishinna sameysmay idaacadaha sameysmay wax walba sameysmay marka wax kasta oo ballaarta tartamo kale la qabto tartanka ugu horreeyay Puntland laga qabto waa tartamo kale yimaado marka mar walba wax yimaadaan waxa imaanaya tadawurka iyo horumarka iyo laga faa'iido qorshayaasha socda runtii warka waa idinku badiyay aad waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiina dhalinyarada wakiilada iyo guddoomiyaasha ay halkan waqtiga dheer nala joogay mas-uuliyiinta dowladda guddoomiyaha degmadu ka mid yahay oo isagoo safar ka yimid noo yimid isla markiiba isagana uga mahadcelinaynaa marka aad u mahadsantihiin soo dhawaada